السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I hope إن عافماد قبتين دمانتين aad faraxsantihiin oo wax waliba ay okay idin yihiin ilaahay idinki marka la isku soo noqdo wanaagsan aniga caafimaad qaba alxamdulillah laakiin saa ka dareemi kartaan xogaa yar hargab baa codka iga jiray awlaab li dhihi jiray codkaaga kor u qaad hadda waxaa waaye min allahi hoos ugu degin fahanteen marka waa isku day doona ilaa xad inaan kor u qaado muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa mid ka mid ah yacni qodob dhab ahaan aad u muhiimsan in laga hadlo yacni u baahan in maanta laga hadlo la iska baraarujiyo oo la isa tusiyo wuxuu yahay la istusa maaha wuxuu yahay dabcan waa la wada yaqaanaa laakiin bal ugu yaraan la isa soo xasuusiyo maadaama ay u eg tahay in la ilaabay wuxuu yahayba qodobkaas mid ka mid ah dunuubta ugu waaweyn oo ilaahay subxaana wa tacaala xaaraantinimeeyey oo xaarantinimadiisii axaadiis iyo aayadaba ka yaal oo haddana lala jahro yacni dambiyada sida inta badan waxaan naqaanaa in mataqaanaay si walba horta qofka dembiga markuu galayo rabbiyuhu arkaya laakiin dunuubta waxay u badan yihiin dunuubta waaweyn oo la xaarantinimeeyey qofka inuu la gambado oo kale ama uu dareensan yahay yacni xumaantooda inuu saas u galo uu la dhuunto laakiin tan ayadoo la ogyahay inay xaaraam tahay ayadoo la ogyahay inay dembi tahay oo haddana lala soo banbaxo oo yacni wax caadi babliga laga dhigto waxaa ka hadlaynaa waa heesaha iyo muusiga mid ka mid ah waxyaabaha maanta jiilkeenan jira weyn iyo yarba la dhihi karo boqolkiiba 70 maan dhahnaa mise 80 adee tiro aad u badan ku dhex jira oo aaba ka marnaynba waa ka xumahay oo waxa kaliya aan ka soomi waayo aan dhahe yacni waxyaabo badan oo aan maagay inaan iska jaro oo aan ku guulaystay jiritaankooda oo aan sidoodii uga haray way jiraan laakiin muusika iyo heesaha waa wax kaliya aan iska jari la'ahay ani waa iska jaray ani ahaan alxamdulillah marka horena wax qof raadiyo oo saa horub u sheegaba muuqaal kale oo muuqaalkii aan uga hadlaynay aafada oo uu leeyahay tiktok iyo waxyaabaha la midka ah aan ku sheegay wax ani ugu talagali jiray oo aan dhageysan jiray oo inta ugu talagala aan meel kala soo dego ama caadi u daarto ma una ahayn laakiin tiktok inta ku arko oo kale ayaan sii dhageysan jiray waxyaabihii markaa ay ka mid ahayd waxyaabihii aan jaray ama aan mataqaanaa intaas yarta aan meesha ka maqli jirayba aan go'aansaday inaan ka soomo oo aan dib aanan u maqal waxay noqotay wax kaliya oo ii suurageli waayo sababtu waxay tahay bulshadii oo dhan ama bay-ada aad ku nooshahay yacni meesha aad ku nooshahay oo dhanba ayaa mataqaanaa ay wixii markay ku dhex jiraan way adkaanaysaa adiga inaad ka harto magaaladaad maraysaa waa maqlaysaa qofka meesha shaqadu iyo mataqaanaa goobta shaqadu imaanaya waad maqlaysaa jaamacadaad joogtaa waad maqlaysaa yacni wax kaa qarsoomaya ma aha xitaa mararka qaar wax qofku markuu daaranayo at least hadduu uu isaga un ku ekaan lahayd waxbay ahaan lahayd yacni qofkaas xumaantiisaas markuu isaga bes ay ku eg tahay uu isku koobayo way wanaagsanaan lahayd laakiin isku koobayaanoo wixii waxay noqonayaan wax markuu qofku una kusoo gaarinba ayay noqoto inay kusoo gaarto muusikiisa asiga u daran waxaa ugu daran meeshaana ee guriga agtiisa waxaa jiro geerish yar oo lagu xareeyo mootooyinka ku yaalo habeenkii mararka qaar anna waxaa ahay dadka oo dhawaqa ku tooso yacni dadka oo wax yar xitaa hadday sharqamaan si walba ay u hurdaan sharqan yar hadday timaado sharqan yar hadday timaado hurdada ka toosin kartaa ah habeenkii dhowr jeer oo kala duwan ayaan ku toosaa mooto ama bajaaj muusig kasoo daaran oo lasoo xarayn rabo bal xilligaasaa la joogaaye muxuu la qaylinaa muxuu la guuxaa dee qofka ma soo dhawa qofka intaasoo ku jira sentimitir ama ugu yaraan 1 kilomitir 2 kilomitir laga yaabo inuu ku jiro laamiga markaas uu soo gudbaayo ayaad maqlaysaa guuxa muusiga u daaran oo aad u malayso in xabadkaaga ka dhex dhawaaqayso ayuu ku dhex fadhiyaayo oo wataa bal sidiisa kale haba u daarnaata ha soo wato leelaa la joogaa ummad buu ogyahay way jiifaan waxaa wanaagsaneyd inuu soo damiyo maahano markuu geershku sii galaayo u damiya marka sidaas daraadeed ayay noqonaysaa dee inay adkaato inaad ka soonto waa kow marka laga yimaado horta waxaa jiro axaadiis badan iyo aayado badan oo xarima xaarantinimadeedii oo sheega yacni cuquubta ka dhalanayso iyo mataqaanaa dhibaatooyin adduun ay leedahay yacni saameyn nololeed
intaan la teginba ciqaabtii iyo qiyaame saameyn nololeed oo dhibaato ah ayay ku leedahay qofka. aayaadka ka hadla mataqaanaa muusiga xaaraantinimadiisa waxaa ka mid ah min suurat luqmaan ilaahay wuxuu ku yiri ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. dadka waxaa ka mid ah qaar iibsanaya war liita oo bilaa macno ah, yacni oo ku bedelanayo wixii wanaagsanaa ama wixii mataqaanaa ay ku jiri lahayd wanaagoodii iyo dantoodii ku bedelanayo war macna yacniga. sababtana maxay tahay liyudilla can sabiilillahi bighayri cilm, si uu dadka uga lumiyo dariiqa xaqa oo isaguna uga lumo ayuu u sameynaya. wayatakhidaha huswa, kuna dhigto mid lagu dheeldheelo. dadka noocaasi ah waxay leeyihiin baa la yiri cadaab dulleeya maalinta qiyaame. mufasiriinta waxay ku fasireen aayadaas waxyaabahaas la sheegayo inay yihiin muusiga iyo heesaha iyo waxyaabaha lagu garaaco muusiga. aayadaas waxay kusoo degtay baa la dhahaa nin aad faasid u ahaayo faasiq weyn ahaayo mataqaanaa galadii quraysh dadkii ugu waaweynaa ka mid ahaa oo la dhihi jiray annaqd ibnu xaarith. inaa ku maqlaa umalaynaa si fiican uma hubi laakiin magaciisaas uu ahaa ayaa jiray oo dadkii nebiga ka horyimi ka mid ahaa. markuu arkay in mataqaanaa dacwada nebiga ay si fiican u socoto oo dad badani ay gaartay ayuu wuxuu go'aansaday inuu ka hor yimaado oo dadkan dhanka loo kaxaynayo maahane dhinaca kale ugu kaxeeyo. wuu baxay wuxuu aaday faris iyo roomaankii yurub dhankaasuu aaday, yahuud iyo nasaaro soo maray. wax badan oo agaba uu soo aruursaday oo ka mid ah agabka muusika iyo naago ama dumar heeso ayuu soo batay. wuu yimid markuu nebigu meel intuu istaago uu dadkii xaqa u sheego uu ka tagaba asna wuu yimaadaa. yacni dadkii uu nebigu wacdiyo oo sida dadkii soo cumriyeystay dadkii soo xajiyey markuu maago inuu dacwadii gaarsiiyo oo diintii wax uga sheego uu wacdiyo uu ka tago. ninkan isla markii wuu yimaaday wuu imaan jiraa la yiri, agabkiisu xirxiran jiray, naagii uu dhihi jiray heesa. markaasuu qisaskii iyo wixii maalayacniga uu soo aruursadayna uu uga sheekayn jiray. markaasuu dhihi jiray wax maxamed idin sheegay iyo waxaan adin sheegay yaa macaan, yacni wax aan adiga sheegay soo kama raaxa badno oo kama degana wuxuu maxamed idin sheegay. cadaab buu idin sheegay, aakhiru idin sheegay, argagax buu idin sheegay ayuu dhihi jiray. markii dambena waxaa la yiri ninkaas wuxuu lagu dilay uu ku dhintay dagaalkii Badr. aayad kale Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri shaydaan baa la hadlayay, shaydaan buu la hadlayay. ilaahay wuxuu yiri واستفسس من استطعت منكم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. waxaad ku duufsataa ood ku kaxaysataa dadka shaydaano codadkaaga, gaadiidkaaga iyo ciidankaaga intaba isku kiciyo isku dar dad iyo dunya bala wadaag bani aadamka oo meesha doodid kala dhac baa la yiri. aniga waan ku sii daayay, yacni waa imtixaan moogtahay shaydaanka, waana lagu imtixaanay bal inay iska ka celin karaan iyo inay ku raaci karaan baa la yiri. waxaad doontid u adeegso. codadkaasina waxaa laga waday oo lagu fasiray oo codadka shaydaanka la leeyahay muusika iyo heesaha. waxaa suurad kale aayad kale min suurat al-furqaan ilaahay wuxuu ku yiri walladina laa yashhaduuna az-zuura wa idaa marruu bil-lagwi marruu kiraama. waa kuwa markay soo maraan shayga dembiga ah si sharfan u dhaafa oo isaga gudbaa la yiri oo aan wadwadin aana raacin. إلهي وحكى هلا مركز آياتها عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آيات كاس هوس إيماني سي أيضا آيات كاس ولاهي كورمع والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني قفك مؤمنك يعني إن وحيابها ذنبك مركو كهري ماذا أونا راعين. يعني هذا كهري مات كذا أنا محي نوطه واو مستمر أقشد إني موسيقى كهري ماتو sidaas darteeda u adag tahay yacni aan u yiri waxyaabaha aan ka soomi waayay ka mid tahay, laakiin ilaahay wuu ogyahay inaan ka soomo. ilaahay wuu ogyahay markay noqoto marka in aad noqotid yacni in adoon raali ka ahayn meeshii laga daaro isaga tag. ama qofkaas mararka qaar ay qabato ma ogtahay markuu qof meeshii uu yimaado goobtii ganacsi oo kale yacni dadkii ma ilaaliyaan ma ogtahay nidaamyada inta badan. qofka ku daaray ama mobilkiisa ka daarantay ama TikTok ku jira meelahaas ku jira uu iska daynayaaba uu iska sii dhageysanaya ma isdhahay dadkan ma ku dhibsanayaan dadkan cashir ma u socday qofkan quraan u akhrisanaya ma isdhahay. waxa ay qabato mararka qaar iPhone badan dhiga badan ma soo gadaayo qof walbo aad aragtid inuu wax kugu dheereeyay ma siisa ay qabato. maalin hore ay ugu dambeysay oo hargabkan basaan yahay isbuucan bilowgiisa
maalina waxay noqotay in zaa'id uu hargabka uu qandhadiis intay qabatay madaxa soo xanuuno kadibna iyadoo waqtigii shaqada laga bixi jiray aan la gaarin xitaa aan soo dhaweyn oo galbihii ah ama markaas uu salaada casar laga baxay iska soo baxay xaafadda soo aaday marka mootada soo raacay mootada wiilka watay ani laba gabdhood kala saarneed mid khayr Allah siiyay mootada hore ka fadhiyay ma aqaan inuu wiilka la socday iyo inuu iska soo raacay ma aqaan in muddo markaas soo soconay buu codsaday in samiicada gadaal ugu jirtay moogtahay in music loo daaro yani in loogu xiro telefonkiisa uu ka daaro ani waa dareensanaa codsigaas inuu wato zaa'idna madax ii xanuunayay markii bay noqotay ninkii inuu codsiga hirgeliyo isla markiiba waa naxnay xitaa billaah gadaasheen markii ka soo yeertay musica ama samiicadu ay soo dhawaaqday waa isku naxnay markaas dhahay niyo madaxa xanuunaya naga dami waxaan يعني ما بديهم بقى waxaan waa dambi iyo waxaan waa sidaan ma dhihin madaxa ay xanuunaya caafimaadka ku dhibay u jeeda iga damiya dhahay ani gabdhaha waa isla hadalnaa hal mar dhawaaqnay waana laga dimi in yar kadib wiilka horu fadhiyay baasha yar oo shaashad camal ah meesh u saarneed kilib buu siibo maxaa sameeyay ani madaxa ay xanuunaya dhahay u sheegay codsiga sadii la tixgelin waayay lacagtiisa ay isaga digtay mid kala raac yani sidaas oo kale markay ku dhacdo waa markaad si dhaba inta ugu duceysid ilaahay soo hanuuni dadkan oo dhan dhamaantood musiga ka wada madoobay aad si niyad ah u dhahay si aad u badbaadade oo waxay aad ay tahay inaad ilaahay dartiis aad ugu harto si ay aad yani aad ugu badbaado ka haritaankooda ama ay kugu fududaato oo kale aayadahaas kaliya tama aha axaadiis badan jirto oo sheegaysa xaarantinimada iyo dambiga heesaha sida xadiisu uu ku leeyahay صوتان ملعونان يعني لو عد ولا لعنضي وإلهي ما جعله وحنا كم ده هذا كوة عد كهيسة iyo heesaha iyo music iyo xadiid kale oo badan oo mataqaana sheegayo xarantinimada iyo dambiga ay heesuhu leeyihiin iyo inay xaaraan yihiin ku cadaynayso waxaana la yiri maalinta qiyaame dadka oo musiga dhageysta cadaab dhagaha looga shubaayo yani masaamir la dhalaaliyay oo cadaabka yani lagu dhalaaliyay naarta wal ciyaadu billah ayaa dhagaha looga shubaayo yiri cadaabkooda waa ka saxaabiga weynaa ee Cabdillah ibn Mas'ud nin u shaqeyn jiray ayaa waxa la yiri maalin iyagoo wada socda ayuu wuxuu maqlay dhawaqa heesaha ayuu maqlay markaas la yiri dhagaha uu faraha gashtay wuuna sii socday ilaa cabaar markii dambe la yiri dhagaha markuu ka bixiyay hadda wuxuu maqashaa maya uu yiri hadda ma maqlo waa ka soo fogaanay maxaa sidaas sameeyay la yiri wuxuu yiri waxaan arkay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo codkaas markuu maqlay saa sameeyay oo dhagaha yani faraha ka gashtay si aan idin tuso ficilka nabiga iyo waxa ay ka ahayd dhankiisa yani ficilka nabiga iyo sidoo ugu falceliyay markuu maqlay anna inaan ku daydo oo u bandhigo dadka ayaa u sameeyay waxa laga hadlayo dabcan waa musica heeso waxa jiro oo iska caadi ah oo bila musica oo heesiyo anaga marka yareerina loogu heesi jiray oo kale oo mataqaana misigada lagu tumi jiray oo kale waxyaabahaas ma aha annaga hadda jiilkeenan heesan oo dhageysanaa astaghfirullah heesan oo dhageysanaa yani oo fanaaniinteenu ku heesaan dabcan wax macnaa ma laha munkar iyo mataqaana hadallo la ogyahay waxay yihiin khiyaaliya mala yacniya musigu u dheeryahay oo caafimaad darun ka dheefaya qofka hadaba markii laga soo tago taas aslan sida la ogyahay wax walba oo laga xarimay waa waxaan danteena ku jirin caafimaad ahaan danteena adduun caafimaad yani maskaxdeena quluubteena wax aanan u fiicnayn heesaha waxay leeyihiin saameyn aad u xun yani adduunka gudihiisa waa mid koow ee la isku raacay in horta qofka xasuus ay ka lunto marka koowaad ma aqaani sababta mawduuc walba ka hadlaayo ay ugu jirto horta wax xasuusta lumiyo anigana qodob anoo wax baarayo oo kale haday noqoto inaan arko qodobkaas waa mast inaan soo qaato sababtoo ah waxa ogahay oo dareensanahay qof ilaahay maskax siiyay markuu maskaxdiisa lumiyo oo isagu uu sabab u noqdo xanuunka ay leedahay marka waran adigoo lagu dhahayo heblaayo ama qof adig ku aqaano oo laga yaabo ilaa aabaha inuu yaqaano oo ku weydiinayo xaaladda family-giina adna aadan aqoonin wax ka xanuun badan ma jira inaad lumiso dadkii aad meel wax iskula soo barateen dadka daris ahaydeen dadkii yarantiin aad soo kuntay yani dadkaas oo dhan inaad ilowdo dadkiina ku yaqaanaan adigiina qaab aad ula macaamisho aanay lahayn waxna waa wax yani laga xumaado in wixii aad taqaanay aad soo baratay iyo wax walba danaha ku jiray inaad ilowdo
waana sababteedii adi aa lahaato oo ilaahay maskaxdii ku siiyey aad adi sabab u noqotid inaad lumisid yacni waa xanuun lay ku tilmaami karaa, wax kaloo dhihi kara ma laha. wax lagu sheegayo war maalintiisaan ahayd maalintiisaan ahayd maxaa kugu dhacay ma waalatay lagu dhahayo ayna macquuleen inay kugu soo dhacdo yacni waxyaabahaas oo kale. marka heesaha waxay ka mid tahay la yidhi horta wax ugu daran yacni in badan ka qayb qaadata inuu qofka xasuustiisa lumiyo. qofka yacni inay la mid tahay draagiska. qofka draagiska isticmaalo inta badan dadka lama mid aha moogtay, wejigiis markaa aragtiduu kow kaasoo horbaxo yacni ma u eko dadka kale, ma aqaani sida looga dhex saaro, wejigiisa calaamado gaara baa ka muuqanaya. waa tabtaasaa la yidhi qofka muusika dhegeysta saameynay ku reebtaa jirkiisa iyo yacni jirka mataqaanaa xubnaha jirka ama unugyada jirka. muusika markay soo gasho ama qofkan muusik uu maqlo waxay u fahmaanaa la yidhi xanuun, yacni waxay uga falceliyaan jirkan inuu xanuun soo galay. jirku wuxuu soo daayaa la yidhi xanuun baabi'iye ama endorphin isagoona u dareensan waxaan soo galay inay xanuun yihiin, fahmaysaa? taasoo keenaysa marka qofka inuu reynreyn dareemo, in xoogaa uu dareemo inuu ku raaxaysanayo oo kale, naftiisa ay raboonayso, taasoona hadhow dambo ay noqonayso in jirkiisi uu daal dareemo. dabcan ayna ka qayb qaadanayso oo lagu leeyahay raadka daroogada oo kale ay samaysaayo saameyntaas ay qofka ku yeelataa isbedelka jirkiisaas, iyo inay qofkii murugo kusoo siyaado markuu joojiyaba. intay markaas u socotana waxaa laga yaabaa inuu reynreyn ku dareemo. waa markay ay dhahayaan qaar aan arkayo mataqaanaa cilmu nafsiga ka hadla ama saynisyahano, dabcan aanan muslimiin ahayn, yacni waxyaabo badan oo positive ay ka qoreen music aan arkay, laakiin ani positive ii ahayn. hal qodoba xoogaa igala mataqaanaa macquul noqotay aan arkay, taasoo ay dhaheen dadka waaweyn oo qofka oo kale markuu da' noqdo oo kale waxyaabaha lagu soo celin karo xasuustiisa oo kale in loo daaro hees uu hore u maqlay oo kale ama raadiyo ka maqlay, haddii loo daaro oo kale ay dhaci kartaa la yidhi in qofkaasi uu soo xasuusto waxyaabo muddo ka hor yacni dhallinyarnimadiisa ama mar uu heestaasi maqlay oo kale. taasna anay igu dhacdayo hadda ka hor mar anoo tiktok ku jiro hees igu hor imaatay. dabcan heestaasne waxaa maqli jiray anoo yar oo 13 jir mataqaana 13 jir 12 jir meelahaas anoo ah maqli jiray ayaa iga hortimi. si fiican aan u aqaanaa heesta sababtoo ah anoo yaraan maqli jiray. qofkan markuu da' yar yahay yacni way u fududahay wax walba inuu qabto, way u fududahay inuu wax walba xifdiyo. bas heestii markaa tiktok ay ahayd dabcan waa dhigay, yacni isla markii ma aanan ka gudbin, yacni waa dhigaystay. markii dambe waxaa iska soo jaray yacni waxaan dareemayay wax xoogaa wax ay dhahayaan oo kale ay ku sheegayaan qofka deganaanuu ku dareema oo kale ay leeyihiin, laakiin waa degnaan khiyaaliya oo dadka keliya ay u arkaan indhow garadka. yacni qof indheer garad ah ma u arko muusik inay tahay deganaansho iyo wuxuu raaxo ku dareemo uma arko. marka waxyaabihii waaye moogtahay markaasay noqotay inaan iska soo jaro. yacni ani jecela dareemoyaa qofkaa jecelhayn ma ogi astaqfirullah. marka wax saasay leedahay, jirkana xanuun baa u fahmaa, qofkan madax xanuun badan ay ku keeni kartaa iyo murugo badan oo noloshiisa ka mid ah. qofkii inuu mar walba uu ahaado qof nolol khiyaaliya iskaga nool, qof si uu niyad jab u dareemo, waxay ku xiran tahay mar alaala muusik markaad aad dhegeysato. muusik muruga haddaad dhegeysato waa murugaysan tahay. mid boodbood iyo buuqa haddaa maqasho adoo dhan qof waaran camalad u dhaqmaysaa, saasaad u soconaysaa. yacni xarakaadka uu jirkaaga muujiyo iyo qaabka u dhaqantid xitaa iyagoon muusikaasi kuu daarnayn ayay noqonaysaa inaad u dhaqanto, aad u socoto sida qofkii muusikaasi u daaran oo kale. yacni ay kaa dhex guuxdo mataqaanaa, ay kaa dhex guuxdo, ay kaa dhex hadasho. waxyaabaha ugu daran oo ugu cajiibsan oo muusika raadkeeda ka mid ah iyo waxaa waaye qalbi madoobaad, inuu qalbiga yacni qofka u madoobaado. mana jirto aafo uga daran qofka muslimkaa in qalbigiisa uu xumaado. ilaahay baan ka magangalnay. yacni waa xubinta qofkani uu yahay yacni inuu ka socdo, yacni xubinta uu ka hagmo. xadiidkii nabigu wuxuu ahaa idaa salaxat salaxa aljasadu kullu wa idaa fasadat fasada aljasadu kullu. yacni xubintaasi hadday hagaagto, cadkaasi yarkaa oo dabcan loola jeeday qalbiga, hadday hagaagto wax walbay hagaageen, hadday xumaatana wax walba way xumaadeen. qofka muusika dhegaysanaya suurtagal uma inuu khayr maqlo, ma fahmaysaa? yacni haddii aad tahay dadka muusika dhegaysto macquulku maahan haddii aad isku dayaysid xitaa inaad qur-aanka xifdisid inaad xifdisid macquulku maahan. maba dhegaysan kartid, ma u dulqaadan kartid. sababtoo ilaahay wuxuu yiri min suurat al-axzaab maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi. يعني إنسان كله قلبي ملا هالقلبي إلهي كسيه.
إما ميد بو آذية أما بدح بو آذية يعني لو ميل مكان آذي كرتid haddii aad muusig dhegaysatid qalbigaagii heesahaas baa gelaya oo seef garaynaya macquul maaha inay gasho yani khayr meel ka kala ma laha mana kuu suurtagal aha inaad qur-aanka xifdiso oo qalbigaagii galo ama aad dhegaysato haddii yani ay uu qur-aanka galana uu fahmo macnihiisa oo qur-aankii dego aad noqotid qof qur-aanka mar walba u dhowo qalbigiisa usoo jeedo oo dhegaysan karo khayrka usoo jeeda meel ay kaa gasho ma lahan muusiga iyo munkarka waad ka fogaanaysaa oo ilaahay baa kuu madoobeynaya waana ilaahay baa ka baryayaa inuu naga madoobeeyo dhammaanteen yacni jiilkeenan maba jirtaba wax na soo gaaro janaalada soomaalida ugu waaweyn waxaa lagu yiri ama ugu subscriberska badan ugu followerska badan waa kuwa heesa soo gudbiyo muuqaalada ugu daawashada badan soomaalida waa kuwa heesa dabcan waan wax laga xumaado ka waddan muslim ahaan wax macquul ah yacni lama ahan dadka markay fiiriyaan ma fahmaysaa marka waa wax la og yahay waxay ka mid tahay u dhahaya marka dunuubta inay xun tahay la og yahay laakiin lala jahro wayba tahay marka qofkii maba la gambanayo meeshuu rabo ku daaraya suuquu ku daarayaa soo socduu daarayaa kalaasku u dhex daarayaa muuqaalkii horaa kusoo sheegnayba goobaha lagu cibaadaystuu ku daarayaa wuuna og yahay qofkan aslan wuu og yahay in waxaani munkar tahay muusig tahay yacni ay dembi tahay wuu og yahay in ay xaaraan tahay wuu og yahay inuu ciqaab aakhiro ku mutaysan karo wuu og yahay sidoo kalena yacni raadad xunxun iyo saameyn xun noloshiisa adduun inay ku yeelanayso wuu og yahay xusuustiisii qaadayso wuu og yahay qalbi madoobaad ku keenaysa ilaahay baan ka magan galnay wuu og yahay wuuna sii wada waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka kasii jiheeya inuu dhanka alle usoo jeesto inuu cibaadadii mataqaana uu laazimo dhinac khayrba inuu soo aado waxyaabaha ka celiyay ka mid tahay sababta maxaa lagu yiri waa codadka shaydaanka aayadu ilaahay ku leeyahay codkaagii iyo mataqaana u adeegso intaa haystid ciidankaagii iyo muusiga ku jira yani muusiga ka mid ah qofka marka waa qof shaydaan wato oo ma u suurtagal aha inuu usoo laabto dhankii qur-aanka qisooyinka igu yaabka badan oo ah ku maqlay muusiga ama heesaha aafadooda waxaa ka mid ah in andalus oo kale in muslimiinta lagala wareego inay sabab u ahayd heesaha say sabab ugu ahayd waxay sabab ugu ahayd nin waxaa jiray la dhihi jiray ziryaan ama zaryaam saa u taqaanidba nin madow buu ahaa uu ku dhashay ciraaq kuna barbaaray oo ku noolaa baqdaad nin baa jiraa la yiri oo macalinkiisa ahaa oo isxaaq la dhihi jiray oo bari jiray heesaha iyo muusika iyo waxyaabahaas yani uu bari jiray fankana yani kuma koobna keliya heeso fanka dhan wanaagsan dhinac wanaagsan uu ka jira oona heesaha ahayn dabcan sida la fahmi karo bes heesaha usuu bari jiray agabka heesaha lagu garaaco يعني waxyaabahaas isagana waxaa la yiri nin oo mataqaana cod ku qaado yani cod fiican leh aad u cod fiican oo heesaha qaado ahaa kadib wuxuuna ahaa ninka macalinka isaga u ahaa wuxuu ahaa nin boqorada ka agdhow ninkiina maadaama macalinkiisiba uu yahay dad boqorada ka agdhow waxay noqotay isagana in sidii macalinkiisa oo kale ay noqoto inuu madaxii u dhawaado boqorada sida boqoradii markaas jiray muslimiinta ahaa sida Harun al-Rashid oo kale bas Harun al-Rashid arkay ninkan yani heesihiisa waxay noqotay inuu mar walba codsado inuu ninkan u yimaado oo u heeso ma aqaanay sibay heesaha markaas dadka ugu mushkiladaysnaayeen dabcan laakiin sida hadda lagu yahay ma aheeno markaas waxay ahayd marka ay kusoo bilaabanaysay ama ay usoo gudubtay wadamada muslimiinta oo heesaha markaas ay mataqaanaa si waaliya ay u xiiseynayeen ninkan oo macalinka u ahaa ninkan la dhihi jiray marka Ziryaam ninka macalinka u ahaa uu dhibsaday uu ka masayray oo kale aadi maadaama ninkan uu ardaygiisa ahaa oo u arkaayo inuu suuqa ka saari doono wuxuu yiri laba midood soo gal ama waan ku dilaya ama wadanka waa ka baxaysaa waa labadaas uun option kale ma haysatid ninkii Ziryaam ahaa markuu maqlay in ninkan macalinkiisa ay arrintan serious ka tahay uu soo baxay wuxuu soo aaday dhanka iyo mataqaanaa galbeedka Afrika ayuu soo aaday markuu in yar uu joogay muslimiintii markaas joogtay ninkan fitnadiisa ay arkeen waxay arkeen heesaha iyo waxyaabo uu wado iska fogeeyeen oo way eryadeen wuxuu u baxay marka dhulkaasi markuu u bixi doono uu usii baxay dhulkaas Andalus waxaa la isku dhahaa Spain Portuguese iyo qaar meelo kamid ah yani iyo qaybo kamid ah Faransiiska ayaa markaasi ahayd yani wadamo ay muslimiinta ka taliyaan bas ninkii meeshii uu galay yani dadkii markaas boqorada mid kamid ah muslimiinta ahaa mid kamid ah waraaq u diray oo yiri cilmiga leeyahay waxa rabaa cilmigayga inaan kula wadaago and then sidii kula balamay uu ku tusay waxyaabaha uu wato nin oo
mataqaanaaye wax badan oo xadaarad ah yacni aruurin jiray uu ahaa. marka wuxuu baray waxyaabo badan oo ay cunno karinta ka mid ah, agabkan muusiga, waxyaabo badan. waxay u arkeen marka dadkii in ninkaasi uu xadaarad iyo waxyaabo cilmi kale oona iyaga haysan kusoo kordhin karo. ninkii in yar wuxuu faafinayay yacni uu dadku ku dhex galayay, uu u arkayay hibadiisaas ama waxyaabahaas uu isaga ku suuq galo in waddankaasi ay ka maqan tahay ama deegaanadaas dadkaasi ayna aqoonin. waxay noqotay inuu furo yacni meel iskuula oo lagu barto muusiga iyo heesaha iyo waxyaabahaas la xiriira. ninkii wuxuu noqday qof yacni si zaa'id ah uga caanbaxay waddanadaas oo yacni dadkii ummadii baray heesihii. dadkana markaas midda ugu darana waxay tahay, waxay ahaayeen midda ugu cajiibsana waxay tahay dadka xilligaas meeshaas ku noolaa waxay ahaayeen dad mar waliba ku tartama qur-aanka, yacni hadba qofba qofku ka cod fiican yahay, ka cod macaan yahay qur-aanka ku akhriyo, yacni meeshaas ugu darajo sareeya. ninkan wuu tagay, dabeecadii wanaagsanayd iyo dhaqankii meeshii yaalay buu sabab u noqday inuu guuriyo dadkii, maadaama markii hore uu kasoo dhacay madaxdii iyo dadkii ugu waaweynaayo magaca ku lahaa waddankaas. dabcan dadkii maatada ahaayo rayidkiina way saamaysay oo iyagiina wixii bay wax wanaagsan u arkeen oo way wada galeen. sidii ayay noqotay in yacni dad badan oo mataqaanaaye ay la helo oo ku dhex jira muusiga iyo munkarka iyo heesaha. waxaana markaasi marka saasay sabab ugu tahaa la dhahaa sababtii ugu weyneed ee muslimiinta yacni andalus loogala soo wareegay oo looga soo bixiyey heesaasaa kow ka aha. markii dambe waxay dhaheen ninkan yacni duulaan badan oo muslimka nagu hayn lahaa ama waddankan uu qabsan lahaa, ninkii naga badbaadiyeyba ninkan uu ahaa. ilaa hadda waxaa la dhahaa taaladiisa way ka taagan tahay waddamadaas, yacni taalaaba loo dhisay oo loo suray maadaama uu ka qayb qaatay yacni in la xoreeyo waddankaas ama muslimiinta laga saaro. yacni bal u fiirso, can you imagine waddan dhan oo ku noolaa intaas wadada muslimiin yacni dadka ka talin jira ee ahaayeen muslimiin, waxa koos gareeyay yacni in waddankaasi laga saaro muslimiinta. sababta ugu weyn waxay ahayd yacni muusigaas oona ku tusayso daaminis in la bedelay quluubtoodii dadkaas oo dhan. waana marka lagu leeyahay muusiga iyo heesaha waxaa ka dhalan karo yacni caro alle oo ah in buur inta lasoo jaro dusha liska saaro, in dhagxaan ilaah subxaana watacaala uu samada kasoo daadiyo, in yacni la bedelo qoomkaas oo dhan ay daanyeero iyo loo bedelo doonfaaro walciyaadu billah. yacni ciqaabta sideedaba waxay ka dhalataa soomaa carada ilaahay. heesuhuna waxay ka mid yihiin iyo muusiga waxyaabaha uu ilaahay necab yahay, waxyaabaha yacni ilaahay caro geliya oo yacni ilaahay uu ku caroodo ay ka mid yihiin. inagana maanta yacni heer waxaan joognaa ilmaheeni yar, dhallaanka yar oo guriga jooga 5 jir 4 jir 3 jir aad arkaysid isagoo heesaya wadooyinka markaad maraysid aad arkaysid ilmihii yaryaraayo albaabada banaanka taagan oo kale oo heesaya. xilliyadaas oo kale canug markuu joogo waxay ahayd wixii hadda ku cusub oo hadda loo bilaabo oo kale inuu akhriyo qur-aankii hadda loo bilaabay inuu akhriyo, yacni waxyaabo noocaasa in ay noqoto in mar walba u tareengareeyo oo isugu faanaan oo yacni isugu baxaan oo isugu tartamaan. taas waxay ku tusaysaa heerka la joogo jiilkeenan. yacni canuga wuxuu isaga inta badan arkaayo uu ku dhex jiro inta badan u qabtaayo xifdiyaayo ku celceliyaayo ciyaartiisa ay ka mid noqotaa. waxay ku tusaysaa in yacni caruurta yaryar taleefanada loo dhiibaayo waxyaabaha ay ku dhex jiraan yacni bay-ada saamaysay wixii dadkiiba ay ku dhex jiraan oo ay dhex dabaalanayaan dee iyagina dhankooday ka galeen. waana wax mataqaanaa yacni aad iyo aad looga xumaado ayaana mudan tahay in dhanka laga arkayo dhanka kale laga arko. xaqiiqatan haddii qoyskiinan ama gurigiinan ama adigaba aad aragtid inaad ku raaxaysanaysid oo ay mataqaanaa ay ku dhadhamayaan heesaha, isku laabo. marka midaas marka waxay ku tusaysaa in meel yacni uu khayr ku jiro, meel marba hadday muusigaas iyo xumaantaasi soo gasho siduu khayrku uga fogaado. haddii aad isku dayaysid in dhanka khayrka aad u janjeerto, aad qur-aanka xifdiso, aad wanaag badani aad dhegaysato oo welin aad heesaha wadid, hadda kuu sheegaya macquulku ma aha, wax macquula oo suurtagalaya ma aha. maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi, maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi. hal qalbiyaa leedahay, qalbigaasna hal dhan buu aadi doonaa. haddii wanaaga aad u kaxaysidna wanaaguu aadaa, haddii heesaha dhankoodii iyo xumaanta aad u wadidna dhanka xumaantuu kuu kaxaynaa. waa labadaas mid un, yacni waa inaad mid u go'da. dabcan midda kuu wanaagsan inaad u go'didna waad dareemi kartaayo waa meeshii dantaadii adduun iyo taada aakhiraba ku jirta inaad u go'did. waa halkee? waa dee dhanka khayrka iyo wanaagga iyo daacada rabbi.
oo ka fog inaad dhegaysato muusig iyo aad u aragto inay wax wanaagsan tahay. waxaa laga yaabaa dadka, maadaama dadka intooda badani ay ku dhex jiraan muusiga iyo heesaha, inay wax wanaagsan tahay. wixii dadka ay u bataan micnaheeda maaha inay wanaagsan yihiin. marka u fiirisid waaba cagsi. waxay dadku u badan yihiin had iyo jeer meel lagu badan yahay haddaa aragtid meeshaas khayrkeeda wuu yari. sida caadiga meel lagu badan yahay oo dadkii dhan ay u qulqulaan oo dhalintii dhan ay kusii jeedo haddaa aragtid meeshaas waxbaa ku laban. marka in meesha wanaagsan keligaaba aa ku noqotide hadalkii uu dhihi jiray cumar ibn khadaab muxuu ahaa, laa tastawxishu dariiqa alxaqi liqilati saalikiin. yani wadada wanaagsan inaad keligaa ku noqotid oo ama aad ku cidlootid darteed ma yani wax looga haro maaha. ma fahamtid? marka si aad u deganaatid oo qof nolol degan oo khiyaali ka fogo caadiya u nool ahaatid, oo khayrku qalbigaa u galo, oo aad qur-aanka u xifdisid oo u qabatid, oo aakhirada u shaqaysatid, maxay oo xusuustaada u wanaagsanaato, qalbigaagii qalbi nadiif ah oo daahir ah oo ilaahay daacadiisa u dhow u ahaado, waa inaad ka fogaataa. yani wax la leeyahay muusig inaad ka fogaatidna hadda kuu sheegaya way adag tahay. يعني qof walba kula daba taagan, يعني qof walba aragtid u daaraya, mootaday ka daaran tahay, dukaanka gashiday ka daaran tahay, guryahay ka daaran tahay, qofka shaqaynaya u daaran tahay. wax ilaa xad la dhex mushaaxaya waaye, oona la og yahay oonan qarsoonayn dhibaatada adduun iyo mid aakhiro ay leedahay. mana garan karo anagoo arkayno wax yani dan noogu jirin mar walba, oo danteena adduunna ku jirin aakhirana dan noogu jirin. horta inaan ku wadno aan ku socono ma aqaani anaga wax nagu qalqaaliyo. ilaahi subxaana watacaala mar walba waxaan ka baryaynaa inuu na waafajiyo meesha uu khayrku ku jiro. allahuma waafaqnaa lima tuxibu tardaa min alaqwaali walafcaal. marka intaas idinkugu talagalay inaan idinla wadaago maanta. waan ujeedaa maanta muuqaalkayga ma una dheeraanin, yani waa sidii laga rabay. anigana editkiisii maku daali dooni, adinkana daawashadiisa yani ma dhibsan doontaan oo maku cajisi doontaan hadduu ilaah yiraahdo. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka aad daawatay. jazaakum allahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.